Bismillahir Rahmanir Rahim kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya qaybtan waxaan ku eegi doonaa wararka degdega ah markan ka soo baxaya safaaradda Mareykanka ee Riyadh oo markaas lagu weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn haddaba maxay tahay weerarka Iran marka la rogaal celiska gabi ahaan bay ku qaadayso dhammaan safaaradaha kala duwan ee Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe talaabooyin culus saacadii ugu dambeeyay la qaaday xalay intii la jiifay waxyaabo badan oo waliba aad u xasaasaya ka dhacay gobolka bariga dhexe saameynta ugu badan ayaa ilaa hadda la warinaya in dhimasho tirabeela ka jirto safaaradii waliba aagaga guriga ku yeelan oo gabi ahaanba dhulka la basbeelay sida qiiqa iyo holaca aad ka arki kartiin qaybtan ay raba saaxiibeel in halkeeda kugu wadaago soo dhawaada muuqaalka la garee si share gareeya soo dhawaada saaxiibeel qaybtan raba in halkeeda kugu wadaago waxaan idinka dalbanaynaa markuu ugu horeyso muuqaalka like saaxiibeel meer dheerino gaarsinaysa ay like tahay naga hakrina sidoo kale channelkan haddaadan horey subscribe u dhahan fadlan nagu soo biir kamid noqo oo subscribe gareyso si wararka degdega ah bariga dhexe iyo waliba geeska Afrika dhamaantoodba inaan ku samahsanidin soo dhawaada saaxiibeel safaaradda Mareykanka ee Riyadh ayaa markaasi lagu weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo saacadii ugu dambeeyayna si weyn gabi ahaanba dhulka u tale ayaa la tilmaamay waqtigan in wararka markaasi lagu kalsoon yahay in sheegayaan in safaaradda Mareykanka ee markaasi ku taala magaaladaas Riyadh ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ay markaasi haleeleen laba diyaaradood oo waliba kuwa aan duuliyaha lahayn oo droneska loo yaqaano kuwaasi oo markaasi la sheegay in laga leeyahay Iran iyadoo ilaa hadda wali aan la shaacin sababta in kasto Iran maalmihii ugu dambeeyay gabi ahaanba ay waday duulimaadyada ka dhanka ah waliba diyaaradaha droneska oo waliba gabi ahaanba ay ku weeraraysay qaraxyo ayaa laga maqlayaa aaga loo yaqaano Diplomatics Quater iyadoo markaasi la arkayo holaca iyo waliba qiiq madow oo cirka isku sii shareeraya taasi oo ilaa hadda wali la rumaysan yahay in wasaaradda difaaca Sacuudiga ay markaasi la sheegay in ay xaqiijisay in dab xoogan iyo waliba sidoo kale burbur waxyaabo badan ka dhashay qaraxyadaasi inkastoo aan markaasi la sheegin qasaaraha nafeed oo ilaa hadda wali aanan si rasmi ah loo shaacin wali baan la ogaan karin laakiin wararka ayaa tilmaamaya in gabi ahaanba dhulka la daadshay dhammaan guriyihii ugu waaweyn ee halkaas ku yaalay ila wariyaado markaasi aynu ka soo xignay wakaalada wararka Reuters oo qayb ka tahay waliba warbaahin badan oo baahinaya ayaa tilmaamaya in qaraxa markaasi laga maqlay subaxnimadii hore iyo waliba ay talaadana waxaan markaasi socda baaritaano rasmi ah ku saabsan sababta iyo waliba inta dad halkaas ku nafay dhinaca kale wararka ayaan imaanaya xilli markaasi cirka isku sii shareertay xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Israa'iil iyo waliba sidoo kale Iran iyadoo markaasi qaar badan falanqayaashu inta badan ay tilmaamayaan in saameyn xooggan ku yeeshay macnaha suurtagalnimada iyo waliba argosiga waqtigan ku aadan taasi oo la rumaysan in gabi ahaanba dhulka markaasi la soo daasay ilaa hadda wali talaabooyinka Iran ay u qaadayso ayaa u muuqato in gabi ahaanba markaasi ay si weyn uga hortagayso yool kasta iyo waliba isku day kasta oo ay ku damacsan tahay Israa'iil waliba sidoo kale Mareykanka taasi oo u muuqata gabi ahaanba in dhulka maanta ay soo daasay safaaradda Mareykanka markaasi kula halkaasi mana jirto ilaa hadda wali qorshe cad oo ay u qaaday inkastoo wali la warinayo talaabooyinka ugu muhiimsan iyo waliba saameynta xoogan ay ku yeelatay waana qorshaha ugu adag ilaa hadda wali Mareykanku duqeynta culus ee halkaasi ugu geystay